دلوقتي هماجي سماري بانس فضل سبسكرايب صار وبوليك نريح. السلام عليكم daawadayaasha sharafta leh ee ku xiran channelka Manchester City Somali Fans. Kusoo dhawaada silsilada taxanaha ee taariikhda ciyaaryahanada. Waxa aynu ku soo qaadan doonaa ciyaaryahanka khadka dhexe uga dheela xulka qaranka Belgium iyo kooxda Manchester City, Kevin De Bruyne. Waxa uu dhashay 28 bishii June 1991. Waxa uu ku dhashay magaalada Groningen, gobolka Gent ee dalka Belgium. Hooyadii waxaa lagu magacaabaa Anne De Bruyne, aabihiina waxaa lagu magacaabaa Herwig De Bruyne. De Bruyne wuxuu ku hadli karaa English, Dutch, French iyo Germany. Hooyadii waa Ingiriis balse waxay u dhalatay dalka Burundi, Afrika. Sidoo kale waxay ku noolayd Ivory Coast. 2013 kooxdaas ayaa kala wareegay saaxiibtiisii hore ee Caroline. Taasna waxaa ka dambeysay markii uu Kevin gacalisadiisa ku qiyaamay saaxiibadeed Queen oo la seexday. Kadib gacalisadiisa ayaa aad uga xumaatay, iyadoo ku dhaqaaqday fal dadka ka yaabiyay, iyadoo samaystay ficil ay kaga argudanayso De Bruyne, isla markaana koortii wasbalansatay, kadibna qama siisay, kadib isla samaystay ficil jinsi ahaaneed, iyadoo kubad sameeyaha reer Belgium dul dhigtay ceeb weyn. Bacdina waxay xiriir wada sameeyeen Michel Lacroix 2015 ay shaacisay inay urur leedahay, haddana waxa way salabo cunug. Imikana aynu jeclaanay silsiladiisa kubadda cagta. Kevin kooxdii ugu horeysay ee uu ku bilaabay waxay ahayd KVV Dragon 1997 ilaa 1999. 1999 ilaa 2005 waxa uu ciyaaray kooxda Gent. 2005 ilaa 2008 waxa uu soo ciyaaray kooxda Genk. 2012 Chelsea ayaa 7 milyan ku soo gadatay. Waxa uu ciyaartiisii ugu horeysay ka hor yimid Hull City, isagoo caawiyay gool u dhaliyay Oscar. Bruyne waxaa amaah loogu dhiibay kooxda Werder Bremen. 2014 ilaa 2015 waxa uu ka soo ciyaaray Bundesliga kooxda Wolfsburg. Waxay ku iibsatay 22 milyan dhibic 5 euros. Waxa uu noqday ciyaaryahankii ugu fiicnaa Bundesliga xagaagaas. 2015 Manchester City ayaa kula soo wareegtay 74 milyan euro. Halkaasna waxayna ugu eeg xalqadii maanta oo aynu ku soo qaadanay ciyaaryahanka khadka dhexe uga ciyaara xulka qaranka Belgium. Fadlan la soco toddobaadka dambe oo aynu ku soo qaadan doono ciyaaryahankii weynaa ee Yaya Toure. Haddii muuqaalku cajabiyay, subscribe dheh, like-na nagu dhiirigeli. Wixii talo iyo tusaale ah, commentiga noogu reeb.